عاو قبنمو dalkeenni maanta waad ogtihiin madax banaanidii iyo gobonimadii iyo midnimadii iyo wadajirkii ummadda Soomaaliyeed halis bay ku jirtaa waxaanu u baahanahay inaan u istaagno marka walaalaheena reer waqooyi madaxweyne qoorqoor baa fariin u diray maanta waa maalinkoodii caawa waa habeenkoodii waa habeenkay ummadda Soomaaliyeed calanka Hargeysa uga taageen وهذيك ومدى الصومالية وضعن كفرحيين ميل كستو يجوكتو ما المدى ويت مدحضوض وحي سمينيين فرحدي ومدى الصومالية اللحدن يلحسن كور اي كفرحيين ويكنحيين وحارمنا اينا يكلابتان وحارمنا سيدي ومدى وغفرحيين لحدن يلحسن كور حدنا اينا وغفرحيين وحارنا وغفرحيين مدنمو ومدى الصوماليات كما فرحين إن هجامية الصوماليات إن تبتغوا بيت المقدس وإلى هذا عاصمة إسرائيل وإلى هذا كما فرحين دونتي ومدى الصوماليات ويكن نحظي وحان وعليهم كو عصرنا إن أيسن مرضى بأمدى الصوماليات كنحن ماشي اللي قفل هي اللي قل يقيني meeshaasay dadka Soomaaliyeed ka filayaan waxaan aaminsanahay boqolkiiba 99 dadka reer waqooyi Soomaaliyeed reer Somaliland mowqifkaas ma qabaan walaalihii arrintaas xogaa ku qaldamay waxaan ka codsanaynaa inay ka laabtaan jidka xaqaa inay ku toosaan xagga kama jirto baash wanaag oo dhan xagga kama jiro wanaag oo dhan midnimo Soomaaliyeed ku jira wanaag oo dhan walaaltinimo ku jira wanaag oo dhan Soomaali oo mid ah oo xor oo goba oo gobnimo leh ayuu ku jira haddii sida la sheegay weligeedna la sheego haddii ay jireen waxyaabo qaldamay waxa waajib inaan saxno diyaar baan nahay waan saxaynaa laakiin yayna waraabo u gelin yayna balaayo u gelin adoo walaalka ka cararaya waraabaha u tagin taas waa isaash fariintu waa midaas madaxweyne qoorqoor markii uu lahaa waan soo farabaxsaday waan ka cabsanay inuu meeshii noogu yimaado ka cabsanay laaski markii uu yiri galmudug baan iska joogayaa waan bismillaahir rahmaanir rahiim inuu galmudug naga kee madaxweynaha iyo dawladda galmudug waxaan ku ammaanayaa runtii uga mahadcelinayaa martigelinta soo dhaweynta qiimaha badan ee aan uga barannay ee lagu yaqaan madaxweynaha adiga iyo shacabkaaga waad ku mahadsantihiin